waxa uu ka shaqayn jiray mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhanka IT-ga dalka Canada waxaana uu halkaasi ku noolaa in ka badan 35 sano balse waxa uu ka soo guuray Canada kadib markii arrintani ku dhacday arrinta muujisada ah ayaa waxay tahay in Mawlid uu kala kulmay dhaqashada iyo cabitaanka caanaha geela arrin muujiso ah taasi oo badbaadisay noloshiisa waxaan yar lahaa xanuun yar oo la yiraahdo Raynaud syndrome garanayo dad Soomaalidu waxa la yiraahdo qamcaha ayaa qabow noqda dabadna wadamadii qabowga ku noolan kari waayay dabadna waxa la ogaaday in caanaha geelna uu caafimaad dabadeedna caanaha geel ayaan isticmaalay markaasna yar la naaday dabadna markaas ku dhalatay in geel la dhaqo nolosha Mawlid ayaa haatan mid isbedeshay maadaama uu ka soo guuray Canada kana imi mid ka mid ah shaqooyinka ugu wanaagsan oo uu haystay balse Mawlid ayaa haatan geel jiray dareenkiisuna waa sidan haatan shaqooyinkan ka shaqayn jiray muddo badan ka shaqayn jiray gaaladuna waxay yiraahdaan goor walba changes good waxa weeye inaad nolosha bedeshidood kolba aniga waxa ii noqotay inaan ku soo noqdo raasbuskayga hore halkan ka nimid iyo dhaqankeeni iyo geeli دوانا جعل هاي وانا نجوج فيها عانها جيلنا وحكي على عافمات فربضن دوحنا نجوج دل آدم قبو دلنا قبو جافرها بدن لينا كان نستو عندكم ولا ذا علم لدينا ونكسن حنونك هلايلي Mawlid ayaa waxa loo yaqaanaa Raynaud syndrome waana mid ku dhaca jirka bini aadamka gaar ahaan gamcaha iyo lugaha kaasoo mararka qaar sababa in la jiro lugta ama gacanta ku dhaco sawiradan ayaa muujinaya sida ay noqdaan gamcaha Mawlid kadib markii uu haleelay xanuunkan oo lagu magacaabo Raynaud syndrome balse haatan cabitaanka caanaha geela kadib uu ka bogsaday gabi ahaanba haatan Mawlid ayaa waxa uu bulshada u sheegayaa caafimaadka ay leeyihiin cabitaanka caanaha geelu oo ku caafimaad isagu dadku caanaha geela waligood bada uu cabi jirnay imikana aad ba loo xiiseeyayo waxa la ogaaday caanaha geelu inay dawo yihiin carruurta la siiyayna duray ku dhaceen dadka cabaana in foogu ku adkaado leeyihiin nafaqooyin fara badan ayaa la ogaaday suuquna aad buu wanaagsan yahay waxa cid istirahda caana geel iyo suuq waxa nolosha Mawlid ayaa waxa qayb weyn caafimaadkeeda ka qaatay cabitaanka caanaha geela wana tasababtay inuu bilaabo dhaqashada geela si uu ugu iftiimiyo bulshada kale faa'iidadooda wargeyska caanka ee Wall Street Journal oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa waxa uu bogiisa hore ku daabacay sheekada Mawlid ee dhaqashada iyo cabitaanka caanaha geela ee uu caafimaadka ka helay oo noqotay sheeko xiiso badan waxyaabaha kale cajiibka aan ku arkay goobtan aan joogno ee Mr Mawlid geela uu ku dhaqday waxa kamid ah in geelan uu dhaqdo Mr Mawlid ay yihiin geel kala duwan oo laga soo qaaday qaybo fara badan oo kamid ah deegaanada Soomaalida sida dawlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale waxa weeye Baydhabo oo ah iyaduna bartamaha Soomaaliya sidoo kale geel halkan ku dhaqan ayaa qaar kamid ah waxa laga keenay isla deegaanada Soomaalida qaarkoodna waxa laga keenay dalka Itoobiya cilmi baarayaal iyo dhaqaatiir kala duwan ayaa waxay u sheegeen in caanaha geelu ay caafimaad ka yihiin xanuunada macaanka wadna xanuunka sidoo kalena laga helay faytamiino kala duwan ugu dambeyn Mawlid ayaa waxa uu fariintan u diray qurba joogta dalka oo mar kamid ahaa yahow lama horan waxa u jiraa halkani waa dalkeeni nimco badan baa taala dal wanaagsan baynu haysanaa laba arrimood mid yeelay inaad soo guurtaan amba inaad lugna hore ugu joogtaan ula baqa ugu joogtaan halkana deganaataan halkana wax ka qabsataan waata asxaabta barnaamijka maanta ee Ayub Show intaas ayuu nagu eegyahay sheekada Mawlidna waxaan ka bartay Ayub ahaan laba shay taasi oo ah in meel kasta aad joogto ay muhiim tahay in dalkaaga marun timaado isla markaasina aad maalgashi ka samayso waqti kasta ay haatada iyo talabaad oo ah in cabitaanka caanaha geelu ay yihiin caafimaad Mawlid adiga mudan barnaamijka Ayub Show nagu